madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ma aha markii ugu horeysay ee dhinacyadu ay isku jawaabayaan warbaahintana ka hadlayaan toddobaadyadii ugu dambeeyay ilaa hadda qeeladhaanta ugu badan waxa ay ka socotaa dhinaca dawladda federaaliga ee Soomaaliya madaxdeeda masjidka madaxtooyada ayaa madaxweyne Xasan uu shalay ka jeediyay hadallo adag oo ku wajahan dhinaca Jubbaland hadal jeedin socotay 40 daqiiqo ayuu madaxweynuhu kaga hadlay arrimo kala duwan oo siyaasadda la xiriira waana dadaalkiisa ugu badan oo isugu geeyay inuu ka soo qaado dhanka Jubbaland doorashadii dhawaan ka dhacday mid wax kama jiraan isagoo sheegay in Axmed Madoobe uusan gabi ahaan bahaysan sharciyad uu ku maamulo Jubbaland 13 sano oo xukunka joogo Xasan Sheekhna uusan hadda ogolaan doonin Axmed Madoobe inuu miiska wada xaajoodiyada la fariisto oo ay ka wada arrimiyaan arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho tamintan waxaan ku eegaynaa dowreedeed oo uu jeediyay madaxweyne Xasan Sheekh hubka iyo ciidanka lagu daabulaya ee labada dhinacba ay ku sii wadaan raas Kamboni filashada laga qabo iyo waxa ugu dambeeyay ee dhinacyadu ay go'aan ku gaareen madaxweyne Xasan Sheekh ee la tirabeela ayuu Axmed Madoobe huwiyay Xasan Sheekh ayaa ku sifeeyay Axmed Madoobe doorashadiisii ugu dambeysay inay ahayd mid wax kama jiraan waxa soo qaaday dhammaan geedi socodkii Axmed Madoobe kaga baxay shirka madasha wada tashiga qaran waxa uu sheegay Axmed inuu wax ka go'aamiyay dhammaan hanaanka doorashooyinka ee dalka dhismaha gudiyada iyo muddo kororsi uu hore u soo qaatay dhammaan madaxweyne Xasan Sheekh waa uu difaacay waxaana uu sheegay muddo kororsiga uu bilowgii hore ee sanadka ha bixiyay ay ahayd mid sharci oo Xasan Sheekh uu awood u leeyahay inuu bixiyo siyaasiyiin kala duwan waan la hadalnay ayaa ku sifeynaya hadal jeedinta madaxweynaha ee qodobkan la xiriira in fiila Soomaaliya iyadu ay sharciyad dawlad goboleedyo siin karto mid dhaawacan oo aan sharci iyo heshiis siyaasadeed midna ahayn hore looga digay laakiin madaxweynuhu ku dhacay haddana uu miraheeda hayo oo si weyn uga shalaysan yahay madaxweynuhu waxa uu muujiyay in dawlad goboleedyada wali safkiisa ku jira aysan ka bixi karin xayndaabkiisa haddii ay ka baxaan ay dagaal la kulmayaan taasoo ahayd waxa uu hadda Axmed Madoobe ku sifeeyay doorashadii Kismaayo ee dhawaan dhacday waa waxba kama jiraan Xasan Sheekh mar kale waxa uu adkeeyay hadalkii uu hore u sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre golaha wasiiraduna uu go'aamiyeen ay ahayd in doorashadii Kismaayo ka dhacday 25 bishii aanu ka soo gudubnay ee Axmed Madoobe lagu doortay aysan dawladda federaal ku aqoonsanayn dhinaca kalena dawladdu way ku dhiiran weyday inay aqoonsato Ilyas Badal Gaboose oo ay mucaaradka ku qancisay inay isaga u tanaasulaan dadaal badanna ay gelisay inay meel mar ka dhigta ajandihiisa is doorasho isna Kismaayo ka dhacday madaxweynuhu waxa uu Axmed Madoobe ku sifeeyay in dhammaan ka hor imaanaya doorasho qof iyo cod oo Soomaaliya ka dhacda ma ogtahay macaamiil in Amal Bank ku diyaariyo adeegyada Mastercard oo kala Classic Platinum iyo World Dealed ka xulo oo ka qaado xarunta kuugu dhow kaarku waa caalami bangiguna waa Amal hadal jeedinta madaxweynuhu intii ay socotay waxa uu soo qaaday qabsoomida doorashooyin qof iyo cod oo Soomaaliya ka dhaca waxa uu sheegay in doorasho heshiis aan lagu ahayn ay ka dhacday Kismaayo Soomaaliya aan doorasho dadban dib loogu celin doonin go'aankeeda iyo nooca isagu u yaqaano goobta ay ka dhacaysana waxa uu ku sheegay in intii la awoodo oo kaliya laga qabanayo tan oo ka dhigan qorshe aan hore u shaacinay oo madaxtooyada ay ka fakaraysay oo ahayd in doorashooyinku ay ka dhacaan goobaha madaxweynaha laga taageersan yahay ugu yaraan iyo goobaha uu ka qaban karaba taasoo midnimada Soomaaliya ee hadda dhaawacan si kala dhantaali karta Axmed Madoobe waa argaxiso weedha ugu weyn ee madaxweyne Xasan Sheekh Shile laga diiwaan galiyay waxay ahayd inuu ku sifeeyo madaxweynaha ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada inuu xiriir iyo wada shaqayn la leeyahay dhanka kooxaha argagixiso ma ahayn hadal sahlan iyo wax laga filayay madaxweyne Xasan Sheekh ha yeeshee dagaal siyaasadeedka labada dhinac halka uu gaaray ayay muujisay in lagu eedeeyo madaxweyne dawlad goboleed inuu xiriir la leeyahay argagixiso dhinaca kalena lagala hadlo ka qaybgalka doorashooyinka iyo aqalka madaxtooyada inuu kala shaqeeyo waxa la isweydiinayaa sida madaxweyne Xasan Sheekh isku qabadsiin karo ma hadda ayuu ogaaday in Axmed Madoobe xiriir leeyahay kooxaha argagixiso mise isagoo og ayuu doonayay inuu kala shaqeeyo qorshaha dib u doorashadiisa taas waxay tahay su'aasha ugu badan ee la hadda la isweydiinayo mid la hubo waa in Xasan iyo Axmed Madoobe dagaalkooda uu gaaray halkii ugu hooseysay maxkamada waaranna jaro argagixiso la isku eedeeyo wali waxay ka socotaa dhinaca dawladda federaaliga ee Soomaaliya taasoo muujinaysa madaxweyne Xasan Sheekh in dagaalkiisu uu ka gadisan yahay dhammaan kuwii hore u soo maray xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya Jubbaland iyo dawladda federaalku labaduba mar kale waxay ciidan ku daabulayaan raas Kamboni aagan inkastoo aan hore uga hadalnay muhiimadda uu dhinacyada u leeyahay haddana saacadihii la soo dhaafay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay kordhisay geynta ciidamo cusub
iyo diyaarado ay ku daabulayso aaggan taasoo ay u aragteen muhiimad weyn ay ka leedahay in 3 maalin ee soo socda ciidanka jooga la gaarsiiyay in ka badan ilaa 1,000 askari iyadoo yoolku yahay inay ka hortagaan ama iska difaaci karaan duulaan uga yimaada dhinaca Jubbaland oo isku diyaarinaysa howlgal ciidan oo goobtan ay ka samayso xubno kala duwan oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo aan la hadalnay waxay xaqiijinayaan in qorshaha ugu weyn ee dawladdu uu yahay in goobtan ay ahaato taliska ugu ballaaran ee laga hagayo howlgallada dawladda federaalku ay ku doonayso inay kula wareegto deegaanada Jubbaland gaar ahaan Kismaayo iyo deegaano ay ka mid yihiin Afmadow iyo Dooble oo ah bartilmaameedka ugu horeeya ee dawladdu ay doonayso inay gacanta Axmed Madoobe ka saarto haddii dawladda federaalku halkan ay ku guuleysatay inay ku jabiso ciidanka Jubbaland ama ay kaga gacan sareyso waxa ay doonaysaa inay dhaqaajiso ciidankeeda lugta gaarsiisana deegaanada ku dhow ilaa go'aanka ugu dambeeya uu yahay in Buurgaabo ay noqoto goob dawladda federaaliga ee Soomaaliya gacanteeda maamul ay soo gasho taasoo haddii ay dhacdo ay sheegayso dawladdu inay gaartay guushii ugu wanaagsanayd oo aaggan la xiriirta labada dhinacba hadda waxay u muuqdaan inay aadeen jidka xoogga in lagu kala baxo Raaskamboonina ay noqonayso goobta ugu horeysa ee dhinacyadu ay doonayaan inay isku farasaaraan dawladda waxa walwal ballaaran ku haya in ciidankeeda halkaa la geeyay ay awoodi waayaan iska difaacaan dhinaca Jubbaland sida awgeedna ay muhiim u aragto in ciidanka la kordhiyo gaadiid culus la daabulo sidaas oo kalena xaalka Raaskambooni oo isgaarsiinta oo dhan ay hawada ka maqan tahay ay doonayso inay gaarsiiso gurmadyo kala duwan oo ay ka mid yihiin raashin loo qaybinayo dadka deegaanka si ugu yaraan bulshada kalsoonidooda loo kasbado taas oo iyana ah wax ballaaran oo dhammaan dhinacyada oo dhan ay qolo kasta gaarkeeda u eegayso Jubbaland iyo dawladda federaaliga ee Soomaaliya kasoo hadalada madaxda sare ay isweydaarsanayaan ilaa hadda qeeladhaanta ugu badan waxa ay ka socotaa iyo hadalada warbaahintaba dhinaca dawladda federaaliga ee Soomaaliya oo doonaysa inay masraxiyada dhinaca deegaha dadweynaha ay la wareegto laakiin halka rasmiga ee wax kala go'aamin doonta waa awoodda ciidanka oo labada dhinacba hadda ay u muuqdaan inay jidkaas aadaan inay ku kala baxaan ciddii ku guuleysata inay la wareegto Raaskambooni guul militarina ka gaarto dagaallo labada dhinacba ay qorsheynayaan waxaan shaki lahayn inay ahaan doonto cidda waaraysa siyaasadeeda la dhageysan doono go'aanada miiska wada xaajooda ee ugu dambeeyana iyadu ay yeerin doonto madaxweyne xasan sheekh ayaa u sheegay qaar ka mid ah saaxiibadiis inuu dadaalka ugu badan isugu geynayo in meel mar laga dhigo Axmed Madoobe in laga saaro siyaasadda Jubbaland iyo guud ahaan tan Soomaaliya madaxweynuhu inkastoo uu hadalkan isna shalay mar kale ku celiyay haddana waxaa la qiyaasi doonaa labada toddobaad ee soo socda sida dhoollanana labada dhinac u dhacaan iyo cidda go'aanka gama dambaysta ama guuleed kala heli doontaa haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeegga Payc waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zad, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa Payc